wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka EUSOM taliyaha Turkisom General Sabahatiin safaaradda Turkiga taliyaha ciidanka dhulka iyo dhammaan taliyaasha qaybaha kala duwan ee halkan jooga sector 1 taliyihiisa taliyaasha SNA dhammaantiin waa salaamantiin salaamullaahi calaykum waa sharaf weyn bay runtii saaki noo tahay inaan halkan buundadii oo dib loo dayactiray Zabiid iyo Caanoole oo dhowr bilood ka hor ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamada EUSOM Uganda iyo saaxiibada caalamiga ay dirir xoogan ku galeen halkan dad badan ku shahiideen waxaan leenahay shuhadadaas iyo intii naftooda ku bixisay intaba ilaahay ha u naxariisto waxa ka dambeysay in dhiigaas la horay noloshaan maanta lagu jiro fiican iyo in la dayactiro buundadii ay jajabiyeen kooxaha khawaarij sida la sheegay khawaarijta runtii way burburinayaan nafta waa dilayaan dalka waa u daran yihiin diinta waa u daran yihiin dadka Soomaaliyeedna waa u daran yihiin iyo adduunka oo dhan caalamka oo dhan waa nimankaas waalan waxaa jira xadiis dhahaya iimaanku waa dhowr iyo 70 shucbo waxa ugu weyn tawxiidka waxaana ugu hooseeya jidka oo laga qaado wax dadka dhibaya yacni iimaanka intii ugu yaray jidkii la marayay oo umadu maraysay oo la rabay in la nadiifiyo oo laga qaado qashinka si aysan dadka u dhibin ayay jabinayaan diinna waa sheeganayaan buundadii dadku marayeen oo beeraha iyo isaga gudbayeen ayay kooxahaasi duminayaan wax iimaana iyo wax islaamnimo inaysan lahayn meeshaasay ku caddaa yay ka dumiyeen yay u dumiyeen yacni dhibaatada dadka ayay ka shaqeeyaan kamana shaqeeyaan dad iyo caasimadda keliya meel kasta tuulooyinka xitaa waa kuwaas marka runtii waxaan rabaa inaan ammaano ciidanka UPDF injineeradoodii iyo kuwii SNA sida hadda taliyuhu sheegay oo markii koowaadba suurtageliyay in buundada la dul maro kadibna walaalaheen Turkiga ayaa runtii shaqada weyn oo buundadan lagu dayactiray qabtay oo ayagu maaragtay weerarkana qayb ka ahaa oo diyaaradahoodu qayb ka ahaayeen ayay haddana meeshii jabtana waad ogtiin isbitaaladii iskuuladii wadooyinkii ayay horay shaqooyin badan uga qabteen haddana waa ujeedaa buundooyinkii nolosha u ahaa yaryaraa oo nolosha dadkeenu ay ku sugnayd beeralayda oo Muqdisho dadku markay wax beertaan ay u soo gudbin jireen ama dadka socotada sii socda ay mari jireen inay fix gareeyeen runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa walaalo jira abaal weyn baanan idin haynaa ciidamada qaranka Soomaaliya ee halkan ku sugan runtii waxaad muujiseen dhabar adeeg geesinimo waxaad muujiseen dalkan inaysan khawaarijtu xataa hadday meel qabsadaan inaysan ku hakan karin inaysan sii joogi karin waan idin bogaadinaynaa waxaad muujiseen fagaarayaashii dagaalka geesinimo xoogan nafurnimo waa ku ammaanatiin arrintaas buundadan waa ujeediin kharashka ka baxay difaaceeda iyo haynteedaba mas'uuliyadiina waa idinka idin saaran tahay ilaahay ka hortiis ummadda Soomaaliyeed hortooda idinka idin saaran tahay cadawgaasi mar labaad waa inaysan u suurtagelin inay inta buundooyinkan yimaadaan dib u burburiyaan waxaan runtii rabaa inaan guud ahaan UPDF oo halkan joogta nagula sugan waligoodna maaragtay kalsooni badan ummadda Soomaaliyeed ka haysta ciidamada EUSOM ka tirsan oo runtii ku barbar dagaalamayay ku barbar dhimanayay ku barbar dhaawacmayay ciidankeena una dagaalamaya sidii dhulkoodii oo kale waxa weeye ammaan badan baan u haynaa waa ammaanantihiin waa sharfantihiin ummadda Soomaaliyeed meel fiican baa uga taaliin waxaanan rajaynaynaa insha Allah habaalkan ummadda u gasheen inaan gudi doono way duminayeen khawaarijtu waa dhisaynaa way dilayaan waa badbaadinaynaa way kharibayaan diinta waa la saxayaa shacabka Zabiid iyo Caanoole buundadii dhibka ay ku qabeenna waa kuwaas loo hagaajiyay ayaguna waxaan leenahay difaaca qayb ka noqda cadawguna yuusan deegaankiina iyo meel u dhow yuusan soo marin aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulaysta